dhalinyaro reer Soomaaliland oo fadhigoodu yahay magaalada Dubai ee wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta gaadhi ambalas ku wareejiyay maamulka degmada saylac ee gobolka selel waxaana ku helinayay safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Djibouti ambassador Cabdifataax Saciid Axmed markii gaadhiga ambalaska laga soo talaabiyay xadka wadanka Djibouti ee uu soo gaadhay xadka Soomaaliland ee magaalada Lawyaado ayaa waxa halkaasi mafaatiixda gaadhiga lagu guddoonsiiyay maayarka degmada saylac dhalinyaradaasi reer Soomaaliland ee iyagu isku xilqaamay inay gaadhi ambalas soo gaarsiiyaan degmada selel ee gobolka saylac ayaa ugu horeyntii ka hadlay baahida loo qabay gaadhi ambalas oo ka shaqeeya guud ahaan gobolka selel ee magaalada saylac waxay farxad baan noo tahay maanta inaanu u keeno gobolka gaadhiga ambalaska waa gaadhi cusub oo brand new ah oo ay ku jiraan agabkii dhammaan caafimaadka ee furinayay baahida bukaanka meel kasta joogaanba oo gaadhay gobolka meelihiisa kala duwan ee uu yahayna waxaan mar labaad ku celinaya waan u madnaqayaa gudoomiyaha gobolka maayarka safiirka Soomaaliland ee Djibouti oo noo fududeeyay oo la'aantood aanay wax farabadan lama suurtagelin ilaahay baa mahad leh dhammaan cidii ka qayb qaadatay maxaan ku raadayay soo gaarsiinta ambalaska iyo reexaji maxaa saleebaan ayaan u mahad celinaynaa waxa kale oo mahad celinaynaa safiirka maayarka reexaji oo igmatalayaan laba saddexdan inamood halkan noogu yimaadeen dan iyarka ka sheekeeyo halkan maanta noo yimaadeen waxay naga wareysteen baahiyaha degmadu u baahan tahay maxaa idinku daran oo baahiyo yidhaaheen runtii anagu dhowr baahiyood baan sheegnay oo ugu horeyso ambalaska baahida u horeysa laakiin aan u gudbinay waxay ahayd magaalada saylac oo cusbitaal weyn oo imika diyaatir lagu sameeyay leh oo aan ambalas lahayn degmada aad u ballaaran tahay degmada inta leeg qofka ku xanuun 200 oo kiiloomitir isku wareegay qofka ku xanuunsada gargaar galbeed inaanu ambalas boormo iyo Djibouti mid uga sokeyn niman dhalinyaro waan saaxiib ahayn oo gobolka aan joogay igu yimid oo wali maxaan kula qaban ilmo Saleebaan Xaaji Yaasiin marka laga tagana Mukhtaar iyo Asmaan iyo Cabdirashiid oo la socda midna 2 bilood ka hor gobolka nimaatay 2 bilood kadibna waxay ka soo jawaabeen baahidii koobaad ee loo qoray aad u mahadsantiin Asmaan iyo Mukhtaar iyo Cabdirashiid runtii waxaan leeyahay halka ku soo saarteen Ilaahay wax wanaagsan idinku bedelo runtii waxaan u mahad celinayaa barasaabka maayarka golaha deegaanka oo dhan saylac mas'uuliyiinta kale halkan joogta maanta isduwaha caafimaadka runtii wax lagu farxo weey waxaan leeyahay qorbi joog oo ku dayda ka Asmaan iyo sameeyeen iyo Cabdirashiid iyo Mukhtaar runtii waa tusaale aad u wanaagsan baahiyo badan ma gobolkan jira insha Allah waxaan doonayaa intaan joogo baahiyo badan ma wadanka wada jira laakiin selel oo ka duwan tahay oo meel cimiladeeda arkaysaan ka duwan cimilada kale ee Soomaaliland marka in la caawiyo baahiyo aad u badan baa jira marka insha Allah aan qudheedo soo dadaalay wixii kale aan u helaan ku soo wareejin doonaan gobolka Ilaahay gobol baahi badan ay ka jirto Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Soomaaliland Djibouti